waxaanu nimi ku soo noqonay xingalool habeen baan haddana u yar maartay habeenkaa waan seexanay aroortii baan haddana waxaan u ballannay in aanu dhowr wax samayno waxa ilaahay mahadiya runtii in wasiiradeenni nala joogay xildhibaankeenni siyaasiyiinteeni inaan maanta halkan ku dhagax dhigayno qurba joogtu inay yidhaahdeen waxaanu rabnaa oon lacag ka bixinaynaa jago aanu iskuulka technical school war dad badan ma helaan halkaa aan ku yar istaago technical school cid kastaa u baahan laakiin manaanaan soo koobiyeen wax naga guuxayahay alxamdulillah maanta waanu soo helay maanta way noo iibsantay jagadaas waa 100 bal hadda u fiirsada waxaynu kala leenahay ma jirto laakiin qolada qurba joogtu waxay wadaan xoogaa yar test bay wadaan bal privatekiina dhinac ka sameeya publicna dhinac ka gala waayo public partnership wax la yidhaahdo adduunka horumara oo inay public iyo dadka public iyo wixii private loo leeyahay intay iskaashadaan ay markaa intay wax isku darsadaan waliba wax keenaan taasaanu test ku wadnaa taasaan fariin idinkaga wadaa taasoo ahaanaya dhagax dhigano insha Allah waana idinka baraynaa inaad ku ducaysaan culimadiina iyo waxgaradka iyo siyaasiyiinta iyo cid kasta oo maarta laakiin waxaynu naxaynaa saaka waxaan idhi wiilka halka joogan adeer waxay adaa lagu dhigay adeer soo dhawow waayo eeg xaqiiq waxa kuwaasaynu u dhisaynaa meeshii soma wiil iyo gabdhaba mashaariicda ay inoo keeneen hadda oo kani ugu dambeeyo oo dhul boqol intay iibiyeen ay rabaan inay inooga hirgeliyaan iskuul farsamo gacmeed ee runtii wax lagu faano oo lagu farxo weeye dadkoo dhammi wada heli karaan magaalooyinkoo dhammi wada heli karaan iyaga waxay ballan qaadeen inay dhulkaas iibiyaan weliba wax ka qabtaan ku sii dayn mayno marka keligood inay wax ka qabtaan inaba dad baynu nahay annagoo dawladdii idiin matalayna odayaashii iyo saraakiishii iyo culimadii iyo iskuuladii iyo intii kaloo dhan waxa la rabaa inay ka qayb qaataan waa dan guud runtii laakiin qurba joogta waa ku ixtiraamaynaa in ay hantidoodiina halkaa inoo geliyaan inoogana shaqaysiiyaan weliba sida uu cabdirashiid sheegayo xataa maaha reer xingaloole waxa imanaya dadka kale ee maartay gobolada kale ka imanaya baa waxay u imanayaan maaragtay inay wax ka bartaan runtii qolada maaragtay dibadda cabdirashiid uu gudoomiyaha u yahay aad baan ugu mahadcelinaynaa runtii way dadaalayaan ilaahay khayr badan ha siiyo ilaahay ubadkooda ay dibadda ku haystaanna ha ku dhowro naftooda iyo maalkooda Allah ku dhowro runtii aad iyo aad bay u dadaalayaan annaguna diyaar waxaan u nahay wax allaale wixii iyagu ay nooga baahdaan inaan la qabanno ka magaalo ahaan inaan la qabanno laakiin iyaga uga dambayno maamulkiisa iyo hawshiisa iyo dhismiisa laakiin wax annagana loo ka baahdo aanu diyaar u nahay beedin ku soo tacabtayna ilaahay khayr ha siiyo ilaahay haddii beedinkeedii wax khayr qaba ha ugu bedelo wixii meesha ka soo saareen haddaanu nahay shacabka degmada xingalool aad iyo aad baanu ugu faraxsannahay barnaamijka kanu runtii barnaamij la heli karo maaha nin gurigiisii jooga oo farsamo gacmeed ku helay wax aad u qaaliya weeye barnaamijka farsamada gacantana annagaa dibadaha ka shaqayn jirnayo dadku Soomaalidu aad uma tixgeliso laakiin waxa weeyaan nin adduunyada nin professor aad arkaysaayo farsamo gacmeed ka soo baxay waxa ciidanka asluubta meel ay diasporadu u dhisaysay waa la dhagax dhigay oo hadhow ay kula noqonayaan partnership waxaan lagu yaqaano luqadda qalaad oo inay iska kaashadaan diasporada iyo Puntland dawladda Puntland qolada qurba joogta oo runtii aan si gaar ugu mahadcelinayo oo wax badan had iyo jeer u taagan dalka horumarintiisa iyo baahi kasta oo timaadana loola yimaado haddeerna saaka halka waxa laga dhagaxdhigayaa meel jeel oo 30 by 30 dhismaheedu dhan yahay oo ciidanka asluubta inay ku shaqeeyaan loogu talagalay dadkana waxa maartay wixii dambiilaale lagu xidho wixii la dhaqan celinayo waxyaabo badan insha Allah bay gali doontaa mustaqbalka qaybta hore iyo bilowgeeda hadda waxa qabanaysaa qurba joogta laakiin waxaan codsanaynaa dawladda Puntland inay nagala qayb qaadato oo wax badan baar maartay waad garanaysaa oo dhulku dhismo badan buu baahan yahay laakiin hadda waxa way qaybta la dhisayaa ka badan mayso 3 qol iyo deyrka 30 ka marka la soo wareejiyo soo dhaweynta la igu soo dhaweeyay magaaladeennan dalkeennan aan ilaahdo Puntland xingalool siiba waxa muhiim in la xuso taliye Xuseen
oo runtii aan aad u wada xiriiraynay ilaa xaaladihii dee hawlihii aad ogeydeen aad iyo aad baanu ognahay hawlaha sida ay tahay xilka annaga naga saaran haddaan diasporada nahay ama qurba joog baan dhehe muhiimadda marka waxa weeye dhowr wax baa la isla soo qaaday xidhiidh baanu samaynay 3 qodob baanu kala qaaday iyo maynu horreysiinaa inta waxaanu nidhi waxbarashadii iyo arrimaha bulshada amnigii iyo caafimaadkii waa 3dii shalay toole markaan jiingadiyo soo maraynay waridaadii iyo sibaayo noo dhiman iyo meelo kale aynu samayn doono marka waxaanu isla qaadanay waxaanu nidhi kanu asluubtu saldhigga asluubtu waqti yar bay waan mar kasta lacagta intaan u rays karayno ama aanu ku yabohno wuu inaga dhammaan karaa waxbarashadii laakiin caafimaadku waa ogtiin maaha inaynu dayacayno ammaanka oo khayr Allah siiyo ciidankeennu waa noo hayaan laakiin si dhaqso ah ilaa dadkii moogtay waan busbay yihiin qaar baan wax ka go'in taasaanu marka u horreysiinay ammaanka taasuna waxay ku tusaysaa inaanu ammaanka number 1 ka dhigan meelaan ammaan ka jirin ku badbaadi maysid waxna lagu dhigan maayo waa lagu kala cararayaa arrimaha bulshada weeye marka inaan arrimaha bulshada ka wada shaqeynana waa laga maarmaan halka kan xarunta asluubta ee degmada bay noqonaysaa sida uu taliyuhu u sheegay xarunta asluubta bay noqonaysaa saldhigii hawl maalmeedku uu ka soconayay magaalada dhexdeedu noqonaya dabcan halkan waxay noqonaysaa marka sida uu taliyuhu u sheegay ninkii xukunna iyo kii dhaqan celiska ahaa iyo kii xukun sugaha ahaa iyo in lagu sii hayo halka kan waxaan rajaynayaa in aanay noqon oo ayna ka biqin in layna wada xidhxidho oo jeel iyo layna ku gureen ay noqoto waxa weeyaan meel aynu ka wada qayb qaadanayno annaguna aad baan ugu faraxsanahay qurba joogteennu inay inoo bilowday dowladda Puntland waa kula jirtaa dowladda Puntland waa kula jirtaa insha Allah iskuul kale oo waxaanu tagnay isagana loo balansanaa hoose dhexe ah oo la balaadhinayay ilays oo ay arday badan ku jiraan oo ardaydii ay u baahatay in loo balaariyo markii hore iskuulkaas iskuul private weeye oo muddo dheer soo jiray kadibna wasiirku khayr Allah siiyo waxa weeye wuxuu ka ogolaaday runtii inaan annaguna codsiga ku jirnay dugsiga ilays dugsiga hoose dhexe waxaana fulinaya dawladda Puntland wasaaradda waxbarashada Puntland aad bay ugu mahadsan tahay runtii wasaaraddu dadaal badan bay bariyahan muujinaysaa iskoolka ilays dugsiga hoose dhexe oo loo dhagax dhigayo maanta aan u joognay xafladiisa dhagax dhiga ahaa ay fulinayso wasaaradda waxbarashada iyo dawladda Puntland aad iyo aad baan wasiirka iyo wasaaradda ugu mahadcelinaynaa horumarka gobolka ay ka sameynayaan insha Allah waxaan rajaynaynaa intaas in ka badan iskuulka inuu sii dhameystirmo baahiyihiisa wasaaradda ay sii dhameystirto iyo wax badan oo kale aan ka filanayna wasaaradaba aad iyo aad baad mahadsantihiin mar labaad wasiir iyo wasaaradda dhammaan waxa loo baahan yahay dadka laftirkooda inay contributionkooda ku darsadaan meelaha bulshada danta guud ee bulshada taasa waxay keenaysaa dadku inay lahaanshihii dareemaan in la ilaashado wixii aanay noqon wax dawladeed oo sida dhaqanka Soomaalida la dayaco waxaan filaynaa iskuulka ilays qurba joogtii waa joogtaa annagoo dawladda matalayna shacabkii in iskuulkaasi noqdo iskuul laga wada qayb qaato oo si dhaqso ah u dhameystirma ardada badan oo hadda kirada ugu dhigataan ay ka faa'iideystaan iskuulkaas waxaan rajaynaynaa inaan wasaarado kale ay dhagax dhigaan santaradoodii ama horumarintoodii magaalada waxna ka qabtaan runtiina noqon maayo iskuulkii ugu horreeyay iskuulo badan baan degmada aan ilaa shalay wadnay inaan dhagax dhigno iyo kuwa aan xadhiga ka jarnaba kuwa kalena waa soo socdaan insha Allah dhammaan gobolka waxaan rabnaa in wax muuqda ay wasaaradda waxbarashadu geliso iyo dhammaan dawladda Puntland hay'adaheeda kala duwan inay wax badan geliyaan sidii wasiir ku-xigeenadu ay sheegtayna dawladda Puntland wax badan baa uga qorshaysan runtii inay gobolada tan Highland iyo Sanaag labadaba ay geliyaan horena waa u sheegi jirnay haddana marxaanti baa laga yahay insha Allah waxaan rajaynaynaa mashaariicda inoo timaada oo iskuulada leh oo caafimaad kale oo nooc kasta oo wax qabadaba leh oo ama qurba joogi ha wado ama dawladdu ha wado ama cid kasta ay noo keentay inaynu ilaashano oo ay noqdaan wax danguuda idinkan waxaan idinka rabnaa meelaha yaryar ee danta guud ah inay idinaana ciriiriyin ee aad u hiilisaan waxaa mahad weyn noo ah oo sharaf noo ah oo qiimo iyo milga noo ah in maanta naloo dhagax dhigay iskuulkii ilays dugsiga hoose dhexe ee degmada Xingalool waxqabadkii iyo wanaaggii wuu muuqday dee hadal ma harin laakiin waa idiin ducaynaynaa insha Allah taala ilaahay miisaanka xasanaadka Allah idinku daro ka soconay waxaanu marka ku ballanay inaanu tagno
oonu soo dhigano cusbitaalkii Xingalool referalka Xingalool iyo MCH-ka oo Xingalool iyo MCH kale oo Xingalool ah iyaguna oo halkaa ku yaala ahaan waxa weeyaan Soomaaliya kastoo ka midaysan tahay adeeg caafimaad inuu meelo badan liitaan laakiin si sanaag wax moodaa waxa gaabis badan inuu ka jiro adeeg caafimaadka marar badan waxa arkaysa waxyaabo ilin ku keenayo ka weysay marka qaar waxa dhacda in dadka qaar inta laga soo qaado tuulooyinka aanan la soo wargeliyo ambalaas aan haysan gaadhaan ku doonaan haysan oo marka qaar loogu wasbaan geedaha iyo dhulka oo inta lagu tagnaa ka soo dhalin geedaha maadaama gaari lagu soo qaadaan jiro marka qaar waxa dhacda in loo kala hooyadii iyo gacantii ama madaxii ilmuhu ka soo jeedo oo qalin loo sameeyo u baahan meesha ugu dhowna tahay qardho oo loo socdo inta qiyaas kartaan ugu yaraan 3 saacadood 4 saacadood oo diyaargalowgeedii hooshooda u baahan marka waxa dhacda in aanu badbaadin karin in ilmihii hooyadii bas ku dhintaan oo marka qaar darno ilmihii meeyda aan hooyadii tarno kiiska hadda ugu dambeeyo kala dhaw cisho qaar waxa dhacday kiis hooyadii ilmihii ku dhintay emergency noocaas ay gashay iyadina ay dhimatay intaanu gaari u diyaarinay hadda baabuurta wixii qaaday xitaa waa baabuur caadi oo maxay ahayn kuwa kirada marka wallahi waxa jira waxa weeyaan dawlad badan meelo badan waxa arkaa oo dhaqaatiir tusaalahaan oo kala kaasbina ama dad badan oo eeyo ka shaqeeyo oo deegaan ahaan Xingalool ka yar laakiin sababta adeegooga caafimaad inaga hormarsan yahay oo tiyaatarkeeda oo haddana tusaalahaan waxa sameyn kara qalin hooyadii ilmaha waana ku tababaranahay laakiin se goobteeda ku howlgelinay ma hayno marar badan waxay qasbaysaa inaynu bukaanada tirno waxaad ogtihiin shaybaadho fara badan oo meesha yaala ma jiro waxaan ku shaqeynaa waxyaaba iska basic oo serology iyo waxyaaba dhiigga la eego ma haysano baaritaan aan ku eegi karno waxa weeyaan hooyadii baaritaan keliyaha kuwii weerka sawir xitaa raajo ma hayno waxa ugu yar waa raajo mug imika waxa dhacday dad fara badan inay ammaantii gaadhay adeegii aan u qabanaynay dad badan oo bulshada inay gaadhay dad badan baa noo imaaday laakiin mararka qaar waxa dhaca in aan adeeg fiican u fulinayn sababtuna waxa xadidaya tusaale qof baa jug baa soo gaadhaysa adigu dhakhtar ahaan soo dalbaday dhakhtar fiican baa lagu sheegay tusaale way miday ma haysana sawir aan ka qaadno qofkaas waa ku qasbanaan inuu kaan oo ku soo lago waxa rabnaa adeeg caafimaadka isbitaalka maanta maalin oo ka hormarsan oo wax laga qaban karo jirto maanta markaan dadkaas maanta dhaafo oo tusaale ahaan aynaan maanta aynaan iska kaashan maadaama dadku dadka ugu sareeyay tiin meel ka sartaan taataanu jirin inaan nagu iska kaashano waxaan wali ka mid nahay jidahayga caruurta OTB-ga oo safiir man nutrition-ka jiido ugu badan dhowr iyo 10 meelood bakeer 12 baan malanaya ay gacanta ku haysaa صح ها جيداً بأوجو بدر ميرها كلمة نعفن أو يطبعاً تتكلم بشيء صغير لكن أنا قال بعتم يديرات بنتنا وإحنا كنا يا إيريضا نودن مالنا فقط للغبية ما شفتوا إلا تملا حاجة رأي شمبرالة تولوين كانوا السباية وإحنا حار لأنه حكرنا يلهم بركضات كمان ما يدريش كعب كنا طبعاً بدنا وإنه ويدينا تفوكس كفاية على حكينا يندت كنا هو باب الشيء waxaan kale oo soo booqday iskuulka aflax oo K8 ah ama kindergarten ilaa 8 grade ah urbajoog haddaynu nahay oon ka socdo oon hadda dee iskuuladii halka aan ku dhaqnayn dowladaha ay naga bixinayeen Mareykanku waad aragtaan oo dhulkeeni si uu yar dayacan yahay dadkiina inaga u maqnayn marka waxaan rabaa inaan maamulaha iskuulka ku soo dhaweeyay oo waxaana xusid mudan 2016kii waa 4 sano ka hor baan imi halkan runtii aad iyo aad baan ugu qancay waxaan arkay maantana waan dareemay waxaan idhi kaale buildingkii waa la yar ballaariyay waan soo dhaweynaynaa 2006 bay ahayd cabdishiid markuu halkan nagu soo booqday isaga iyo wafti kale oo odayaal oo la socda iskoolkuna uu yahay intan kaliya xataa daarada aan lahayn اللهم صل على محمد قولك دم oo lagu darana aan jirin marka maanta mar labaad waxaan ku soo dhaweynaynaa 2021da isagoo daaradii u xiran tahay de kulay magaaladoodii iyo de mantaqadoodii bay noogu yimaad aad baan u soo dhaweynaynaa aad baan ugu faraxsanahay
iskuulkan aflax dayactir badan baa jira daaradda ilaa taqriiban 2 jeel baanu dhisnay marba waa naga duuntay roobka dumiya oo sibir baana lahayn haddana waa dayacan tahay aad iyo aad bay u dayacan tahay waxaanu jecelahay qurba joogta oo Cabdirashiid Kow ka yahay fadlan bil ahsaanikum waxaanu jecelahay in la ka saacido iskuulka ribeerkiisa qolalka xafiis ma leh aween dad maxay isku tashaday baa sida laga warqabo taagay intaas wax kaalmaana waxaanu helay intaas oo maxay haytay keer noogu dartay dayrka baanu anagu ku daray gadaal marka kadibna waxa weeyaan intaas aanu ku majarayo de waqtiga waad la socotaanin abaaraha iyo wixii Soomaaliya soo maray xooli inay dhamaadeen wixii lagu warwareegi jiray oo xagga gudaha ay ka dhamaadeen waxaanu u jeednaa waa unshaariyada noo maqan aad iyo aad baa waadna aragtaan war indhaadhaama waxaa runtii xusid mudan ururka haweenka ka howlgala Xingalool ay ka mid yihiin ururka Calmadow ururka Midnimo iyo ururka Waaye Arag oo aan la kulmay mas'uuliyiintooda iyo memberskooda baan ilaaday dadkii mas'uulka ahaa iyo haweenka ka tirsan ururka oo aad u badnaa oo runtii nagu soo dhaweeyay xarunta Midnimo oo Cadar ay mas'uul ka tahay Cadar waxaan runtii markaan ka soo laabtay Sibaayo aan niri saacad baad haysataa inaad ururkiinu ku diyaar garowdaan aad baan uga xumahay in macnaha ku karkabadeeyo laakiin de muhiim bay ii ahayd horaan u booqday waan ogahay hawsha ay ku mashquulsan inay yihiin arrimaha caafimaadka wax ka qabanayaan oo ka qayb qaataan arrimaha bulshada kooda mashquulsan arrimaha caafimaadka arrimaha waxbarashada arrimaha adeeg markay noqoto security-ga ama ammaanka magaalada inta hanuuninta ay dadka de waxyaabo ka hanuuninayaan ay ka howlgelayaan waxyaabo waxa jira dhaqanka inta badan aynu dhaqan isaga qabno laakiin waxyeelo dumarka ku haya way ka qayb qaataan taas aad iyo aad baan runtii ugu qushuucay habsamida iyo maamulka ka muuqda taas mid weeye waxaan se bogaadinayaa oo marka la ku celinayaa sid habka trainingnada ay bixiyaan xataa ay siinayaan dadka dukaanleyda ah dadka ganacsatada ah oo ay tusayaan how to best manage ama sida ugu fiican ee loo maareeyo habka casriga ah baryahan oo ay barteen iyagoo ay buug ka akhristeen ayay barayaan dukaanleyda ama ganacsatada aad baad u mahadsantihiin waan mid aan aad iyo aad waxaan ugu dheeraanayaa waa waxaan soo arkay wanaagga aan soo arkay baan ugu dheeraanayaa dumarka hawsha ayaan waa mahadsantihiin assalaamu calaykum